2019 yaa soo baxay waa cudur dilaacay caalamka oo dhan runtii aad arkaysaan inuu fara kulul iyo wareer badan oo ku hayo buumuunin badanna lagu daray oo laga sameeyey waxyaalo badan marka waxaa xafiiska arrimaha ardada iyo activitieska wuxuu ugu talagalay inay bal ardadu maadaama arday dhakhaatiir oo veterinary ah iyo arday health science dhigta hadda campuskan ay joogaan awareness keliya ma aha wacyigelin keliya only ma aha laakiin waxa waaye bal concepts inaad ka ogaan kadhid wax ka sheegi kadhid xataa oo macluumaad ka ogaan kadhid si aadan ugu wareerin social mediaha iyo caalamka wararka haysta oo laga qorahayo maxaa coronavirus ka jira muxuu yahay realitygiisu waa maxay yani inaad concepts ka heshid cilmiyan ku salaysan basically sida looga cabsanayo bahalku ma yahay riskigiisu intee dhan yahay waxa waaye dadka uu dilayo numberskooda intee dhan yihiin dadka uu dilayo waa kuwe waxyaalo badan oo macluumaad badan see la iskaga ilaalin karaa daawo ma leeyahay mise daawo ma laha ka hortag ma leeyahay tallaal waxyaalo badan oo marka cilmiyan quseeya SARS iyo markii laga soo gudbay MERS waxaa bilowday hadda 2019 maxay COVID-19 ama maxaa la yiraahdaa SARS CoV-2 oo December bilowgeedii maxaa la yiraahdaa 2019 markii ugu horeysay dad maxaa la yiraahdaa pneumonia qaba oo maxaa la yiraahdaa aan la fahmi karin ama maxaa la yiraahdaa la garan ayaa Wuhan magaalada la yiraahdo China ku taala laga helay kadib waxaa la ogaaday maxaa la yiraahdaa viruska sababaya cudurkan inuu yahay coronavirus family virus ka tirsan oo laakiin horey loo aqoon jirin kadib December laga soo bilaabo ilaa wixii ka dameeyay cudurku wuxuu ku faafay China iyo waliba maxaa la yiraahdaa wadamo kale oo adduunka ka mid ah badankooda waliba bilowgii hore ama ilaa haddaba inta badan wadamada maxaa la yiraahdaa cudurku ku faafayay dadku waxay ahaayeen dad ka yimi Wuhan magaalada la yiraahdo iyo gobolka dad ka yimi oo China ka yimi oo wadamada kala tegay ayaa inta badan wadamada cusub ay diiwaan gelinayeen laakiin dabcan way jireen ama gadaal way ka bilowdeen oo dadkaasi wadamada u safray aawadeed markii dambe wadanka dhexdiisa uu maxaa la yiraahdaa cudurka ka bilowday kiisas cusub January 3 2020 WHO waxay ku dhawaaqday wax la yiraahdo public health emergency of international concern oo maxaa la yiraahdaa ah in wadunka maxaa la yiraahdaa xaalad caafimaad oo degdeg ah uu galay oo ay tahay macnaha in xaalad khatar oo maxaa la yiraahdaa disease adduunka oo dhan ku faafay oo bilowday loona baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladaha adduunka oo dhan collaboration ka sameeyaan macnaha ku jira waa intaas in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa xaalad degdeg oo caafimaad baa maxay la galay hadda oo la joogo 100 wadan ka badan buu maxaa la yiraahdaa coronavirus ama COVID-19 uu laga diiwaan geliyay in 100 wadan ka badan 7 Maaj 2020 aan raahday 8 bishan report ugu dambeeyay soo baxay WHO 8,000 iyo 800 oo case-ka xaaladood ka badan bay marayaan adduunka dadka hadda uu ku dhacay 3,000 iyo 100 oo qof baa geeriyooday China waaye kaliya marka maxaa la yiraahdo wadamada maxaa la yiraahdaa ka baxsan China 2,000 iyo maxaa 24,700 qof bay marayaan maxaa la yiraahdaa xaaladaha China ka baxsan 484 qofna maxay wadamada China aan ahayn bay ku dhinteen guud ahaan marka isku 100,000 qof wax ka badan buu ku dhacay yani hadda kor weydaarteen dadka maxaa la yiraahdaa uu hadda ku dhacay khatarta marka disease-kan maxaa la yiraahdaa COVID-19 wuxuu ku badan yahay dadka waaweyn da'da ah 60 years iyo wixii ka badan 60 jir iyo wixii ka badan dadka ah buu ku badan yahay iyo dadka maxaa la yiraahdaa xaalada hore oo maxaa la yiraahdaa qabay mesela dadka sokorta qaba dadka maxaa la yiraahdaa cudurrada wadnaha qaba dadka maxaa la yiraahdaa immunity-gooda hore u liidatay iyo dadka waayeelka ah baa khatarta cudurku ay ku badan tahay caruurta yaryar aad uguma dhaco ilaa hadda aad loogama report garan caruurta yaryar kuwa ku dhacana waa maxay cudur khatar kuma samaynayo مثلا boqolkiiba 2 oo kaliya ayaa China marka la yiraahdo dadka uu ku dhacay oo hadda aan sheegaynay maxaa la yiraahdaa 80,000 oo qof kor u dhaafay boqolkiiba 2
wax ka yar boqolkiiba laba waxaan ka badnayn baa waxay yihiin dadka uu ku dhacay 20 sano wax ka yar 20 sano wixii ka yar dadkaas dadkuna waxay ka yihiin boqolkiiba labo waxay ka dhigan tahay maxay 20 sano wixii ka yar inuusan xoog ugu dhacayn cudur ta labaadna waxaa weeye dadka maxaa la yidhahdaa uu ku dhacay dadka tirada badan oo ku dhacay 80 boqolkiiba waxa uu ugu dhacay isagoo maxay ah mild disease aan maxaa la yidhahdaa awood badnayn maxaa la yidhahdaa cudur xun aan ahayn 14 boqolkiiba ayaa maxaa la yidhahdaa uu isagoo disease xoog badan ku dhacay ama severe oo khatar ah laakiin waxa critically ah maxaa la yidhahdaa khatar ku jiray boqolkiiba 5 kaliya oo aan sheegnay inay badankooda u badan yihiin maxay dad waayeela dad cudurro hore u qabay dad maxaa la yidhahdaa immunitygooda hore uusan fiicnayn bay boqolkiiba 5 taasina u badan yihiin dhimashadiisuna waxa weeye saa uma badna marka boqolkiiba 4 wax ka yar wey dadka uu ku dhacay ee dhimanaya marka lagu leeyahay dee 100,000 oo qof wax ka badan waxa ka dhintay maxaa la yidhahdaa 3,000 iyo dhowr boqol 100,000 iyo above baa maxaa la yidhahdaa uu ku dhacay ilaa hadda laakiin waa maxay 3,000 iyo dhowr boqol oo qof baa maxay baa dhintay khatar uma aha marka sida cudurro kale oo outbreak oo dhici jiray ay maxaa la yidhahdaa khatar u hayaan marka la fiiriyo dhimashada uu sababayo iyo marka la fiiriyo khatarta cudurka dadka ku dhacay uu sababayo dadka uu ku dhacay uu sababayo tirada marka dhimashadu way ka yar tahay cudurro badan tirada maxaa la yidhahdaa dadka uu ku dhacay ee cudurku si khatar ugu dhacayna waa maxay ma tiro badan dad badan oo ka mid ah dadkaas uu ku dhacay iyagoo xitaa aan wax maxaa la yidhahdaa keer caafimaad helin bay caafimaadeen hadda طبعا ولي waxaa weeye waa cudur cusub iyo virus cusub shaqadiisu way socotaa researchada maxaa la yidhahdaa la sameynaya way socdaan laakiin laa hadda xogaa la helayo gaar ahaan WHO iyo joint mission ay sameeyeen China iyo maxaa la yidhahdaa WHO hadda waxay leeyihiin batiska ama maxaa la yidhahdaa fiidmeerta ayaa waxaa loo badinayaa inay tahay meesha uu ka yimi asalahaan cudur ka yimi marka daraasooyinkay wadaan phylogenetic analysis ka haddan ay sameeyeen wuxuu muujinayaa kuwa virusiska maxaa la yidhahdaa batiska laga soo isolate gareeyey iyo kuwa maxaa la yidhahdaa guduudana aragtaan oo ah kuwii COVID-19 kuwan oo dhan kuwa kan ku xiga maxaa la yidhahdaa labadan kaliir oo kale waxay u badan yihiin kuwa maxaa la yidhahdaa batiska laga soo isolate gareeyey taasoo macnaheedu yahay kuwan iyo kuwan waa ilmo adeerya soo ma kuwan iyo kuwan waa ilmo adeer waa isxigaan marka waxay ka dhigan tahay inuu u badan tahay batisku inuu yahay maxaa la laakiin dabcan weli daraasadu way socotaa weli xooga kaloo badan in la helo baa laga yaabaa xayawaano kale oo maxaa la yidhahdaa aan baadka ahayn oo iyana ka baxsan inay jiraan baa laga yaabaa laakiin ilaa hadda inta la ogyahay intaa weeye cudurradana maxay intana waa waddamada ilaa hadda uu ku faafay adduunka oo qaarad walba leh qaarad walba hadda maxay wuu gaaray marka cudurkan faafitaankiisa baa maxay xoog badan ama maxaa la yidhahdaa waxa la yidhahdaa basic reproduction numberkiisa aad u tiro badan basic reproduction numberku maxaa weeye qofka qaba maxaa la yidhahdaa cudurka marka maxaa la yidhahdaa uu dad aan cudurka qabina sabt baa la u yimaado tirada dad ee ka sii qaadi karta cudur ayaa aad u tiro badan laakiin maxaa la yidhahdaa cudur la xakamayn karo weeye dabcan waxaa ka hadli doona maxaa la yidhahdaa Dr. Faarax cudur maxaa la yidhahdaa inta badan dadku ay ka kacayaan insha allahu tacaala weeye see uu ku faafaa marka saddex shay baa ugu muhiimsan hadda xanuunkan coronavirus uu ku faafaya waa hawada waa mid koowaad qof qaba baa ku soo ag istaagaya uu qufacaya ama uu hindisaya maxaa dhacaysa virus particleski ku jiray respiratory systemka baa banaanka imaanayaan okay adigoo dhinac jooga marka maxaa dhacaysa inaad hore ka qaadato waa sida xanuunada kale oo respiratory ku dhaca ku faafaan sida TB-da iyo kuwaas oo kale xanuunada ku dhaca iyo influenza iyo hargabka iyo wax dhan hadda aad u qabto qof kale waxa u gudbin kartaa maxay markaa hindisto ama qufacdo waa hawada waa mid koowaad tan kale waa maxay waxa taabatay ama asalaantay qof xanuunkii qaba okay marka hadda maxaa dhacday hadda jayno dhan la isku salaamo cagta la isku salaamo ama halkaas qof ka salaamaya soma khasab qofku naftiisa wuu baqaya marka salaana salaamay ku marxabeynay ka waran hadii aan ku dhinto ka waran waa khatar weey risk weey marka maxaa dhacday qaabka labaad ku faafaya maxay noqonaysaa waa taabashada okay tan saddexaad waxa weeye isla taabashadii la xiriirtaayo tusaale ahaan
axmed oo qaba xanuunkii baa wuxuu taabanaya halkan annagoo halkan soo fadhiisanaya meesha baan taabanaya ama gaariga steeringkiisu taabanaya soo iga damaynaya oo taabanaya qof kale isu gudbinaya taabashadaas marka virusku marka inta badan kuma survive garoodo kuma noolaado environment kuma noolaado wuxuu u baahan yahay inta badan cell nool si uu u survive garoobo laakiin xoogaa waqti yar contact time wuu ku sii noolaanayaa hawada hore buu ka dilaya marka covid-19 ama coronavirusku saddexdaa nooc buu ku faafaa waa maxaan sheegnay aerosolka hawada tan labaadna waa taabashada ay salaanta labada qof contact labada qof istaabanayaan tan saddexaadna waa in la taabto okay xanuunka marka daawo ma leeyahay dhammaan xanuunada viruska oo dhan daawo ma lahan okay kaliya maxaa daawo leh parasite xanuunada sababaan iyo xanuunada bacteria waxa sababaan baa daawo leh laakiin viruska ilaa hadda daawo ma hayno sababtoo ah intracellular way cell gudihiisa ku jiraan virusku wuxuu isticmaalaa DNA-da cellka si uu multiplication u sameeyo marka waxa dhacda inta badan daawooyinka markaan siino oo isdhaano viruska ku dila waxa dhimanaya cellkii caadiga ah ee body-ga marka dhammaan viruska maxaa HIV AIDS-ka iyo Ebola-ga iyo kuwii ka horreeyay viruska ahaa oo caalamka dhibaatada ku hayay maxaa loogu waayay daawo ilaa hadda marka viruska oo dhan daawo ma lahan sida aan ka warhaysan antibiotic marka ma caawinayaan antibiotic waa maxay antibiotic kaliya maxay ka adag yihiin xanuunada ay sababto bakteeriyadu waa qaadateen microbiology xanuunada bakteeriyadu sababto kaliya ka adag yihiin marka inta badan haddii aan secondary infection jirin ama xanuun kale qofka hayn inta badan antibiotic-gii micnaha way ma samaynayaan laakiin qofkii waxaa la siin karaa daawooyin la yidhaahdo lagu caawin karo oo symptomska yaraynaya tusaale ahaan xumuddii ka jebinaya tusaale ahaan xanuuno kaloo siyaado ah hadday jireen ka caawinaya okay sababtu maxay tahay problemka loo yidhi hadda wuxuu yahay xanuunkan doc noo sheegay wuxuu ku badan yahay dadka elderska waaweyn wuxuu ku badan yahay dadka xanuunada kale qaba tusaale dad qof TB qabay already immunity-giisa iyo difaaciisa jirka hoos buu u dhacay markii coronavirus yimaadana maxaa dhacaysa wuu sii rafaadaya wuu sii dilaya marka inta badan antibiotic waxba macnaha ma sameeyo laakiin daawooyin baan samayn karnaa si aan calaamadaha uu qofku muujinayo aan hoos ugu yarayno waxaan siinaynaa fluids waxaan siinaynaa maaragtay waxyaaba badan laakiin optionka kaliya haynaa waa maxay qofka uu xanuunka ku dhacay inuu isolation galo tusaale ahaan si aanu dadkii kale ugu faafin okay marka waxaan rabnaa qofkii xanuunka laga heloba in qol lagu soo xiro aanu cidna xiriir la yeelan soo inta uu recovery samaynayo marka inta badan hadda dadkii faraha badnaa maxaa la sheegay 100,000 ka badan buu ku dhacay 3,000 baa dhimatay sababta maxay dad badan baa maxaa dhacay 50 xoogaa baa la sheegay baa recovery sameeyay 1,000 marka isagoo aan daawo la siin baa laga yaabaa inuu recovery sameeyo marka qaababka aan preventionka u samayn karno maxaa ka mid ah kow waa hygiene la hagaajiyo qof gacmihiisa dhaqo waa mid qaabka kale laga hortagi karaa xanuunka waxaa kale laga hortagi karaa marka inaad maxay samayso inaad ku taaban intaad tusaale ahaan qof soo salaanto afkaa taaban intaad derbiga taabato afka inta albaabka ka furto tusaale ahaan gacantaada caadiga ku furto afka ha taabsin waa very risk way hadda inaga maaha inaga dhawaatina ma haysto weli waddankeena ma soo gelin laakiin waa general lacalla hadduu yimaado way waxyaaba ugu muhiimsan maxaa ka mid ah inaad dad intaa meel taabato mar kasta oo afka aysan ka taabanayso waa inaad marka hore saamuun aad iyo antiseptics aad gacmaha iskaga dhaqdaan tan kale oo aan kaga hortagi karaa waxaa ka mid ah inaad ka fogaato qofka xanuunka qaba taasuna waxay sababaysaa waxa la yidhahdo stigma ama qofkii in la takooro waa dhibaatay leedahay laakiin waa lagu khasban yahay qofkii xanuunka qabay inaad u dhawaanin oo aad taaban oo la iska isolate garayo tan kale waa maxay haddii lacala xanuun ku dilaaco qofku inuu xaafadiisa joogo aanu bixin sababta markaa baxdo dadka maraayo o dhan haddii qufacayaan okay maadaama aerosol lagu qaado it's very difficult meel baa taabanaysaa qof qabay baa laga yaaba inuu taabtay hore u taabtay marka waa difficult waxaa kaloo lagu prevent garayn karaa marka aad hindisayso maxaa samaynaysaa ama markaa sneezing samaynayso ama markaa qufacayso malaayiin bacteria baa soo baxaysa sorry virus baa soo baxaya oo coronavirus viruses baa soo baxaya marka waxaa la rabaa inaad mara ku qabato ama aad soft soo qaado fine soo qaado oo aad afka ka saarto markaa qufacayso waxbarashada systematiga oo syllabuska marka laga iyo waxyaabaha seminaarka ah muhiimad badan bay u leedahay arday ahaan oo ay ka mid tahay inay helaan aqoon aysan awal cilmi aysan awal yani ku dhigan syllabuska wixii ka baxsan wixii dhiganayeen wax ka baxsan inay helaan inay wax ka ogaadaan caalamka oo kale waxyaabo badan oo ka baxsanaa wixii dhiganayeen wax ka baxsan inay ogaadaan muhiimad bay u leedahay sidoo kale dadkii waxay u noqonaysaa dad aydiyadooda dadka la wadaagi kara oo markay noqon dad seminaar ka qayb galay oo waxyaabo badan loo qabtay inay noqon karaan dad bulshada dhexdooda ka dhex hadli kara oo ideolojiyadooda iyo wixii fikirka ay ka haystaan waxaas ka hadli kara
waxaan marka ku bogaadinayaa waan leenahay jaamacadda seminaaro badan in ardada loo qabto si ay u korto aqoontooda xagga maskaxiyan ay u korodho ay su'aalo badan dadku u weydiin